بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك سو دواada mar kale akhyaaray waa 20ka bisha March sanadka 2026 oo ku beegan kowda bisha Shawaal sanadka 1447 taariikhda hijriyada. barnaamijka xulashada wararka saaka qodobada aan idinkugu hayno waxaa kamid ah وعيدمada ilaalada kacaanka Iran oo shaaciyay in mawjadii weerar ee 66 ay ku qaadeen gudaha Israa'iil iyagoo adeegsanaya sawaariikh iyo diyaarado drone ah. goobaha la beegsaday ayaa waxaa kamid ah kuwa militariga iyo xarumaha saadka, iyadoo maalintii 21aad malaayiin Israa'iiliyiin ay ku hoos jiraan goobaha gabaadka looga galo gantaalada. waxaa soo baxaysa farcilinta carada huwan ee dadweynaha ka imaanaysa ee la xiriirta dagaalkan oo ay sheegayaan in loo sheegay been iyo marin habaabin. Iran oo sidoo kale saaka iyadoo ciid ay tahay weerar kula jarmaaday Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain. Mareykanka oo maraakiib gaadiid dagaal iyo ciidamo dheeraad ah u soo diraya bariga dhexe si ay uga qayb qaataan dagaalka iyo suurtagalnimada duulaan dhanka dhulka oo ku wajahan Iran. tilaabadaasi oo aad looga digayo. Sacuudiga oo sheegaya in ay suurtagal tahay in qiimaha fuustada shidaalka ay gaarto $180. Qatar oo dhankeeda ku dhawaaqday dhibaato weyn oo saameyn doonta dhoofinta gaaska dabiiciga. Hezbollah oo weerar iyo duqeymo ku haysa waqooyiga Israa'iil iyo weliba deegaanada ku teedsan xadka Lubnaan. Jarmalka oo qaaday tilaabo culus oo ka dhana Israa'iil. dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka. soo dhawaada mar kale daawadayaal, ciid mubaarak meel walbo aad joogtaan. waxaan ugu gelaynaa wararkii ugu dambeeyay ee colaadda bariga dhexe, iyadoo maanta ay tahay maalin ciida ayaa dhinaca kale bariga dhexe meel kasta waxaa ka socota seeriga digniinta ka bixaya gantaalada, duqeymaha oo isdhaafaya iyo sidoo kale diyaaradaha droneska oo ah kuwa ismiidaamiya oo meelo kala duwan lagu weerarayo. xagga Israa'iil haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay, ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ee loo yaqaano IRGC ayaa sheegay in saacadihii u dambeeyay ay qaadeen weerar mawjadii 66aad ah oo qayb ka ah howlgalka ballanqaadka dhabta dufcadiisa afaraad, iyagoo ku bartilmaameystay goobo militari iyo kuwa saadka ee ciidanka Israa'iil. militariga IRGC ayaa waxay kaloo sheegeen in ay u adeegsadeen weeraradan sawaariikh culus oo nuucyo kala duwan ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyagoo tibaaxay in guud ahaan Israa'iil ay beegsadeen. gantaalada loo adeegsaday weeraradan ayaa waxaa ka mid ah Khadar, Khormashaar, Khaybar Shaakiin iyo diyaaradaha ismiidaamiya oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn. bayaan ka soo baxay ciidamada IRGC oo laga sii daayay warbaahinta Iran ayaa waxaa lagu yiri dadka degan dhulka la haysto ee muddada dheer lagu qasbay in ay ku hoos jiraan goobaha gabaadka ee dhulka hoostiisa ayaa ah guulaha ugu waaweyn ee Netanyahu iyo Trump dagaalkan ay ka gaareen. arrinta laakiin la yaab kale waxay noqotay weerarada waa kuwa xiriir ah. hadda aynu barnaamijka wadano daqiiqado gudahood war baa soo dhacay. waxaa la leeyahay duqeyn ayaa waxay ku socotaa bartamaha Israa'iil, gaar ahaan aagga Tel Aviv. waxyaalaha kale xalay la yaab kale wuxuu ahaa ilaa iyo saaki dhacay. gantaalada Iran isticmaashay waxaa ku jiray gantaal hawada wuxuu ku samaynayaa qiiq jiiranaya. macnaheedu waxa weeye gantaalkan saas buu soconayaa. waxaa kaloo la sheegaya arrinta inay ka qayb tahay nidaamyada difaaca in la daaliyo. qabiil reer Iran ayaa goor dhaweyta hadlayay, wuxuu leeyahay dagaalka hadduu kow yahayba, gaar ahaan marka la eego gantaalada madaxyada culus ku rakaban yihiin. markii hore wuxuu yiri waxaa la diriyay gantaalada iska caadiga ah iyo diyaaradaha droniska ah
maalmihii hore ee dagaalka ama labadii toddobaad ugu horreeyay dagaalka laakiin toddobaadkan waxaa bilowday buu yiri in la isticmaalo gantaalo culus waana tii ciidamada IRGC ay sheegayaan in gantaalada la isticmaalayo kan ugu yar uu xambaarsan yahay madax gaaraya 1 tan waxa kaloo yaab leh gantaaladan waxa la leeyahay marka ay soo gaaraan goobta ay ku dhacayaan way kala firdhinayaan taasoo khasaarahana sii kordhinaysa haddaba aynu ku sii socono dhanka Israa'iil wararka laga helayo gaar ahaan warbaahinta ee duqeyntan la xiriirta macluumaadadu waxay sheegayaan in dab uu ka kacay xarun tareen oo ku taal bartamaha Israa'iil kadib markii gantaal uu ku dhacay wargeyska iyo dacood taxriinood ee ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in Iran saacadihii u dambeeyay ay isticmaashay gantaalo ay ku jiraan kuwa madaxyada firdha hay'adda difaaca gudaha Israa'iil ayaa waxa ay sheegaysaa in xalay oo idil seeriga diinta ka bixiya gantaalada laga maqliyay bartamaha iyo waqooyiga Israa'iil gaar ahaan aagga Haifa iyo Tel Aviv taweyn waxa kaloo la sheegay in gantaal ay ku dhaceen magaalada Haifa isla wararka Iran afayeenka ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran ayaa waxa uu sheegay in ay sii wadaan soo saarista gantaalada inta dagaalka uu socdo si buuxda isla markaasina aysan jirin wax walaac ah oo ku saabsan arrintaasi waxa inta uu ku daray in mar kasta oo dagaalka uu sii socdo waxyeelada lama filaanka ay sii kordhayso isagoo sheegaya in aysan waxba ka jirin in la burburiyay xarumaha gantaalada lagu farsameeyo war kale oo dhiilo iyo cabsi ka abuuray gudaha Israa'iil telefishinka Canal I24 ee laga leeyahay Israa'iil ayaa waxa uu tabiyay in dhowr gantaal laga soo riday Syria kuwaasi oo lagu soo weeraray goobaha ciidanka Israa'iil ay kaga sugan yihiin buuraleyda Golan ee Syria laga haysto 24 saac la soo dhaafay laakiin warbaahinta Israa'iil gaar ahaan telefishinkan waxa uu sheegayaa in gantaaladaas ay ku dhaceen meel bannaan wasi hadalka loo dhigay oo aysan geysan wax khasaare ah tani waxay ka macno tahay in Israa'iil laga soo weeraray saacadihii ugu dambeeyay Iran Syria iyo Lebanon oo Hezbollah weerar ay ka soo qaadayso dhanka Mareykanka warbaahinta Mareykanka laga leeyahay ee Newsmax ayaa waxay tabinaysaa in ciidamada militariga Mareykanku ay isku diyaarinayaan in ay diraan dhowr maraakiibta dagaalka iyo 4,000 oo askari oo ciidamada Mareyniska ah waxaana la sheegay in lagu xoojinayo ciidamadooda ka dagaalamaya bariga dhexe arrintan ayaa waxa laga soo xigtay saraakiil aan la magacaabin kooxda maraakiibta ee cusub ee loo dirayo bariga dhexe ee Mareykanka ayaa qaarkood waxa ay sidaan diyaaradaha dagaalka ee F-35 gantaalo iyo weliba gaadiidka gaashaaman oo loo adeegsan karo weerar dhanka dhulka ah warbixintan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadaysaa iyadoo Mareykanku horey ay ugu dhawaaqeen in markabka dagaalka ee lagu magacaabo USS Tripoli iyo ciidamo ilaa 2,500 ah in loo diray gobolka bariga dhexe tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo xalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in aysan jirin ciidamo uu u dirayo weerar dhanka dhulka Iran inkastoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu habeennimadii xalay uu sheegay in Iran nidaamkeeda aan lagu ridi karin oo kaliya duqeymo xagga cirka ah loona baahan yahay ciidamo dhanka dhulka ah dhanka Iran telefishinka Al Jazeera ayaa tabinaya dhawaaqa 4 qarax oo laga maqlay goor dhaweyto magaalada caasimadda ee Dhahran kadib weerar isdaba joog ah oo ay qaadeen ciidamada Israa'iil hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in ciidamadoodu ay weerareen bartilmaameedyo ku yaal magaalada Dhahran ee caasimadda Iran haddii aynu eegno wararka kale ee la xiriira weerarada Iran ay ku hayso wadamada kale ee gobolka Bahrain wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ayaa waxa ay ka shanqarisay in dab uu ka kacay baqaar shirkad ay leedahay kadib markii ay ku dhaceen burburka gantaalo la burburiyey waxaana la sheegayaa in la xakameynayo dab halkaasi ka holcaya dhanka Kuwait shirkadda batroolka dalka Kuwait ayaa waxay sheegtay in warshadda Mina Al Ahmadi lagu dhuftay dhowr weerar oo diyaaradaha drone iska ah aroornimadii hore ee maanta oo Jimco ah warbaahinta dawladda Kuwait ayaa waxay tabinaysaa in dab uu ka kacay qaybo kamid ah aagga la weeraray laakiin lama soo sheegin wax khasaare ah xagga Sacuudiga wasaaradda gaashaandhigga ee Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in la qabtay lana burburiyay 14 diyaaradaha drone iska ah kuwaasi oo ku wajahnaa
gobolka ku yaala bariga waddankaasi. Imaaraadka Carabta xafiiska warfaafinta dowladda ee magaalada Dubai ayaa sheegay in dhawaaqyada seeriga digirta ka bixiya laga maqlay magaalada Dubai kadib markii la sheegay in nidaamyada difaacu ay ka hortageen gantaallo iyo diyaarado drone ah oo hawada soo galay. dhanka Yurub iyo saameynta dagaalka, wargeyska New York Times ee ka soo baxa Mareykanka ayaa waxa uu ka soo xigtay mas'uuliyiin reer Yurub ah oo sheegaya in weerarada Israa'iil ee xarumaha tamarta Iiraan ay yihiin kuwa saameyn weyn leh loona baahan yahay in laga baaqsado. xagga iska horimaadada Xisbullah iyo Israa'iil haddii aynu eegno, ururka reer Lebanon ayaa gordhaweyta waxa uu sheegay inay gantaalo ku duqeeyeen deegaanka Shalome. Xisbullah waxay kaloo sheegtay in maalmihii lasoo dhaafay ay beegsatay ciidamo Israa'iiliyiin ah iyo sidoo kale saldhigyada militariga iyagoo dardargeliyey weeraradooda. war kale oo la xiriira xaaladaha bariga dhexe, Jarmalka ayaa daboolka ka qaaday inuu ka laabtay qorshihii uu ku caawinayay Israa'iil ee la xiriiray eedeymaha ka dhanka Tel Aviv ee ku ahdan in xasuuq ay ka geysteen Gaza. dacwad arrintaasi la xiriirta ayaa maxkamadda cadaaladda ee caalamiga waxa u soo gudbisay Koonfur Afrika. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in hadda Jarmalka uu ka laabtay in uu taageero Israa'iil. go'aanka Berlin ayaa waxa uu imaanaya iyadoo Jarmalku iska difaacayo eedeymo uga yimid dowladda Nicaragua kaasi oo ku saabsan in ay taageerayso xasuuqa Israa'iil oo maxkamad ay kaga socoto Israa'iil maxkamadda ICJ. waxaana lagu soo warramayaa hadda Jarmalku inay go'aan ku gaareen inay ka laabtaan tilaabadaasi. waa hagaag arrinta marka waxay u muuqataa saameyn inay leedahay, waayo Israa'iil hadda keligeed baa isdifaacaysay intii maxkamaddu ay socotay. Jarmalka ku beeraysay u difaaco, laakiin Jarmalka wuxuu leeyahay annaga baa dacwadna lagu soo oogay, marka waa ka baxaynaa taageerada Israa'iil. waa laga yaabaa leeyahay arrinta inay salka ku hayso xaaladda dagaalka ka socda gobolka bariga dhexe. waxaan u gudbaynaa dagaalkan iyo saameynta uu yeeshay. waxaa leeyahay fuustada shidaalka ah $180 inay gaartaa laga cabsi qaba. weliba Sacuudiga warkaas laga soo xigtay. Qatar waxay joojisay shidaalka u dhoofin jirtay dhowr wadan oo xitaa Shiinaha uu ka mid yahay. arrintan waxaa leeyahay saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa gaaska dabiiciga ah ee caalamka. wararkaas iyo duqeymihii ugu dambeeyay ee Israa'iil ku socday daqiiqada ka horna dhacay intaanan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. dhawaada mar kale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Jimcaha toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. ciid mubaarag ayaan idin leenahay meel walbo aad joogtaan, kul caam wa antum bilkhayr. waa hagaag dagaalkan ka socda gobolka bariga dhexe, cabsida ugu weyn ee uu leeyahay waa saameynta shidaalka caalamka. marka laga tago inuu khasaare geysanayo oo dad ay ku dhimanayaan, laakiin saameynta guud oo caalamka dhan u saameynaya waa arrinta shidaalka iyo qiimaha shidaalka. arrinta waxaan leeyahay Iiraaniyiintu muddo dheer ayay ka digayeen intii dagaalkan la diyaarinayay, oo Netanyahu iyo Trump marba ay ku shirayeen aqalka cad oo ay falkinayeen weeraradan. Iiraan mar walba waxay lahayd dagaalkan waxaa laga yaabaa inuu caalamka halis u geliyo. madaxweynaha Turkiga iyo madax badan way ka digeen, waxay lahaayeen Netanyahu wuxuu la wareegayaa qori dab leh, qorigaas dab kalehna meel buu gaari doonaa. Iiraaniyiintu waxay lahaayeen oo kale ka digayeen haddii la soo weeraro xarumaheena shidaalka ama tamarta, annaguna waxaan gubi doonaa gobolka bariga dhexe xarumaha shidaalka ee ku yaal. xarumahan inkastoo wadamada carabta ay leeyihiin, laakiin shirkada Mareykan ayaa saami ku leh. tusaale hadda xaruntan weyn ee la weeraray ee waddanka Qatar ee gaaska dabiiciga, shirkadda la yiraahdo Exxon Mobil ee laga leeyahay Mareykanka ayaa saami weyn ku leh. saameyntu marka waxay taabanaysaa Mareykanka. inkastoo dagaalka dhaqaale badan Mareykanka uu kaga baxayo, haddana way ku soo laabanaysaa xagga dhaqaalaha. haddaba Qatar waanu imaan doonaa warweyn soo saartay, laakiin dhanka Sacuudigaan ku hormaraynaa. Sacuudiga waxaa leeyahay warweyn ayay soo saareen kaasi oo ku aadan suurtagalnimada fursada shidaalka inay gaarto $180. mas-uuliyiin Sacuudiya ayaa waxay aaminsan yihiin
in shidaalku uu gaari karo $180 fuustadii haddii carqaladaha Mareykanka Hormuz ay sii socdaan ilaa iyo dhammaadka bisha Abriil ee foodo inagu soo haysa sida uu daabacay wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykanka oo soo xiganaya ilaa aan la magacaabin qiimaha shidaalka ayaa si weyn u kordhay tan iyo 28kii bishii February markaas oo Israa'iil iyo Mareykanku weerar ay ku qaadeen Iran hadda waxaa la sheegayaa fuustada shidaalka inay ku dhowdahay $119 waa shidaalka qayrin xarunta boqor Faysal ee cilmi baarista iyo daraasaadka islaamka ee magaalada Riyadh ayaa waxay u sheegtay telefishinka Al Jazeera inay rumaysan tahay in shidaalku uu gaari karo $150 fuustadii ayna suurtagal tahay arrintan in ay si dhaqso ah ku hirgasho haddii dekedaha badda cas la weeraro ama ay dhacdo carqalad kale oo dhanka badda cas ka dhalata arrintaasi waxay leeyahay waxay saameyn kartaa qiimaha shidaalka Sacuudiga ayaa hadda waxa uu ka fakarayaa in shidaalkii laga dhoofin jiray wadamada ama dekedaha khaliijka loo soo wareejiyo dekeda la yiraahdo Yanbu ee badda cas waxaana la soo marsiinayaa baa la yiri haamo ama dhuumo shidaalka ah oo ilaa iyo 1,000 kilomitir waa gacanka ilaa iyo badda cas arrintaasi waxaa la sheegayaa in xitaa ay noqon karto in la beegsado goobahaasi haddii dagaalku uu sii socdo marka waxaan wixii laga digayo weeye maalintii Arbacada Israa'iil waxay weerartay xarumaha shidaalka ee Iran Iraniintu isla markaa waxay duqeeyeen xarumaha shidaalka ee Qatar Sacuudiga Bahrain Kuwait ayay ku dhufteen gantaalo weli waxay yiraahdeen gantaalahani waa u naxariisanay wax yar ayaa ku dhufanay haddaba maxaa ka dhashay marka weerarka Qatar oo kaliya maxaa ka dhashay aynu eegno saameynta arrintaasi ay samaysay waa hagaag waxaa leeyahay weeraradii ugu dambeeyay ee Iran ay ku qaaday wadanka Qatar boqolkiiba 17 hoos waxa u dhacay dhoofinta gaaska dabiiciga ah gaar ahaan gaaska dareeraha ee loo yaqaan LNG ee wadanka Qatar Qatar waa mid kamid ah wadamada ugu horeeya caalamka ee kaydka shidaalka ama gaaska dabiiciga ah waxaana la sheegayaa in ay saameynayso arrintan wadanka Qatar sanadkiina waxaa ka qasaaraya $20 bilyan Mareykanka waxa kaloo leeyahay arrintan waxay saameynaysaa gaaskii loo iibgeyn jiray ama loo dhoofin jiray wadamada Yurub iyo Asia wasiirka tamarta wadanka Qatar Saad Al-Kabi ayaa waxa uu sheegay in laba kamid ah 14 xarumood ee gaaska dareeraha ama dabiiciga ah ee loo yaqaano LNG ay waxyeello soo gaartay taasi oo hoos u dhigaysa wax soo saarka 12.8 milyan oo tan sanadkii muddo 3 ilaa 5 sano ah shirkadda tamarta ee wadanka Qatar ayaa waxa la sheegayaa in ay qaadan doonto go'aan ah inay ku dhawaaqdo in ay timid arrin aan wax laga qaban karin oo ah in laga noqdo heshiiskii lagula jiray wadamada Talyaaniga Belgium Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha isla markaas lagu wargelinayo in aan loo hayn gaas dabiici ah wadamadaasi shirkadaha Exxon Mobil iyo Shell ayaa qayb ka ah shirkadaha saamiga ku leh goobtan waxyeeladu ay soo gaartay waxaana leeyahay arrintan waxay dib u dhacay ku sameynaysaa xarunta 10 ilaa 20 sano waxaana lagu soo warramayaa in arrintan laga digayo saameynta ay yeelan karto iyo cabsida la xiriirta dhibaatada gaaskaasi ka dhalan karta iyo weerarada ay suurtagal tahay xitaa mar kale in la soo qaado ma arkaysaa marka arrinta weliba Iiraaniintu waxay leeyihiin weerarkan weerar kooban waaye hadda wasiirka muxuu yiri 12 xarimood ayaa laba kamid ah la weerar bal ka waran hadii 12 ka la weerar maxaa dhici doona marka xaaladda marka faraha ka bixi doonta xalay Netanyahu wuxuu yiri mar dambe ma weerareen doono xarumaha shidaalka ee Iran arrinta marka maxay tahay sababteed Trump waa carooday wuxuu yiri iskumaan ogeyn inaad weerartid xarumaha shidaalka ee Iran maxaa dhacay wadamadii Carabta ayaa Trump hal mar wada wacay cabasho iyo qaylo iyo buuq maxaa ugu gelaysaa dushayna hadda lagu dagaalamaya waxa maalgelin bixinay wixii lacag aan bixinay xagee aad dagaalkan weerarka lagu hayo xarumaha shidaalka hal la joojiyo asana Trump wuxuu la soo hadlay Netanyahu wuxuu ma weerar kartaa xarumahaas waayo Netanyahu wuxuu doonayay
inuu iska hor keeno wadamadan khaliijka iyo iiraaniyiinta waxay leeyihiin anaga wax xeer ah oo noo yaalla ma jiro annaga keliya baan nahay waana la ku goobtay dagaal baana la ku hayaa wadamadiina laga soo tuuraya gantaalada hadda xalay warbaahinta Mareykanka qaar kamid waxay tibinaysay Mareykanku inuu bilaabay wadamada khaliijka qaar kamid in laga rido gantaalo haddii arintaas Iiraan ay u cadaataa leeyahay suurtagal waxa ah wadan kasto laga soo riday inay burburin doonto wararka qaar kood waxay leeyihiin suurtagal waxa dagaalka inay ku beeraan Sacuudiga iyo Imaaraadka Sacuudiga hadda wuxuu sugayaa baan leeyahay dadka jooga xajka ee umraysanaya laakiin xuutigii baa diyaar ah iyaguna xalay buu hadlay hogaamiyaha xuutiyiinta Cabdimaalig al-Xuuti wuxuu anaga dagaalkan riishada ayaan wax ku haynaa buu yiri farta waxayna sugayaan xuutiyiinta haddii Sacuudiga iyo Imaaraadka dagaalka ay ku beeraan ama wadamada reer Yurub Sacuudiga iyo Imaaraadka markaas way duqeynayaan badda casana way xiranayaan baabalmada midna warkiisa ma jirin doono arinta marka waxay u taalaa Trump iyo Netanyahu waa tan wadamada reer Yurub ay leeyihiin arin wax laga qabtay u baahan tahay marka waan arki doonaa wixii ku soo kordhay arrimahaasi inta ayaan saaka ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu